kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel kasta aad naga daawanaysaan waa barnaamijkeeni Dambal TV oo aalaaba idinka yimaada wadamada Ingiriiska, Saudi Arabia, magaalada Buuhoodle, Taleex iyo gaar ahaan deegaanada kale ee gobolada reer Khaatimo. barnaamijkan maanta waxay idin daadihinayaan anigoo ah Cawil Cagaare. markasta barnaamijkani waa Dambal. hore waxa idinku soo deyn jiray Ismaaciil Ducaale, Ismaaciil Aftaag isagoo ah media. imikana waxaan u bedelay isagoo ah TV si aad noogala daawataan aaladda internetka. waxaan markasta idin soo gudbinaynaa fikradihiina kala duwan ee ku aadan Khaatimo deegaanada oo dhan, shirka ka socda magaalada Taleex, arrimaha iyo horumarka maamuladii hore ee Khaatimo iyo imikana maamulka dambe la dhisayo. wixii fikir ah iyo wixii talo ah aad u soo gudbin doonto ama u soo gudbin kartidba waad noogu soo gudbinaysaan. annaguna waxaan idinka ballan qaadaynaa fikirkaagu, taladaadu mar walba waa noo muhiim. annana ballanteeduna waa inaanu idin gudbino fikirkaaga saliimka ah si aanu qofka shakhsiga ah ee aaminsan midnimada iyo ummadda iyo jiritaanka reer Khaatimo markasta iyo goor kastaba waa inaynu ku baraarugnaa ama u soo jeednaa cadawiyada dhinacyada inaga xiga si aad u ogaatid in kan halkan ka xiga ya ka xaqin ka xigaaba maxay faa'iido yihiin ama ka faa'iidayaan inay adiga isku qabsadaan oo maalinba meel ay ku jiidaan. adigu inaad aqligaaga ka shaqaysiisaa markasta. waxaan annana idinka ballan qaadaynaa waxa website-da lagu soo qoraa maqaalo ama qoraallo dad fikirkoodu saliim yahay. annana waxaan idinka ballan qaadaynaa maqaaladiina iyo oraahdiina hadduu video yahay, hadduu cod yahay, hadduu qoraal yahayba in aad emailka shaashada saaran noogu soo dirtaan. ballantayaduna waa inaanu idiin soo gudbino wixii ay noo soo direen dadka fikirkoodu yahay saliimka, aaminsanna in uu noolaado keligii, aan aaminsanayn in qof kale uu rarto. waayo dadba waxay aaminsan yihiin in haddii isaga la rarto uu noolaanayo, haddiise aan la raran uusan noolaanayn. annagu ama barnaamijkayagu markasta waa baraarujinta, waana Dambal ama waa fariin, waana baraarujin aan ugu talagalnay ummadda reer Khaatimo meel kasta ay joogaan. barnaamijkeenuna wuu inoo furmayaa, telefoonno badan ayaa khadka kusoo jira. markastana waxaan idinku soo gudbinaynaa website-dada maanta uu dhacayo oo ah markasta maanta jimcaha uu soo gelayo, khamiisuna ay baxayso 8 ilaa 10 habeenimo ee bariga Afrika, gaar ahaan ama Sharqul Awsat ama bariga dhexaba. saacadu markay tahay 8 habeenimo ilaa 10 habeenimo, labadaas saac ayuu barnaamijka ku jirayaa. ama ha idinka yimaado London ama ha idinka yimaado Saudi Arabia, waa barnaamijkani wiil kasta hal maalin soo gelaya. waxaanu idin soo gudbinaynaa waxyaabaha aad noo soo gudbiseen iyo maxaa ka cusub deegaanadeena. waa anigoo Cawil Ismaan Jaamac, Cawil Cagaare. barnaamijkana waa inoo furaya. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومهتنتين عول أذيع دمبال TV وأنا السلام يا سلام. هذا بدأت كلمة إذا أنا وحنا كسوكوبا يا صدق كلمة الله قوبا إذا حولي إني بك سودولي كلمة بانوران هي كلمة بانوران هي وحوي وحا أمض حضارات هذا كبنا يسا أما قفك بني آدم لكن كسوف لأي حضارة ديسة أما دنيا ديسة لما كحضارة روح النقطي دولان ويرا جوكتا ومستمرة لحالك أيضا تجين مهودنا وحي ويرا وشبين وأبدين عنصريات كبير قدر السياد عدم القبول الحق يوحك استو تكبرا. لكن waxaan rabaa inaan soo qaado taariikhda waxa lagu bineeyay ummadda waxay ku binaysaa taariikhda jiritaankeeda ku binaysaa oo tusaale loogu soo qaataa. waxaan tusaale u siinayaa nimankii Farisiinta markii ay la dagaalamayeen nimankii muslimiinta ahaa ayaa waxa la soo qabtay nin boqor ah. markii la soo qabtay baa Umar ku yiri islaam haddii kale waa la dilaya, hal ay dilaan isagoo meeshii fadhiyo dilkii sugaya ayaa waxa yimid Umar bin Khattab ay hadda islaam wadaan ku dilayna. dabeedna wuxuu koob yaasiya
koobkii biyaha markii loo dhigay buu yidhi intaan koobka biyaha cabayo ammaan ma haystaa haabuu ku yidhi cumar bin khadaab dabeedna biyihii koobkiiba uu saydhiyey wuxuu ogaa markaa islaamku inaanu burinin wixii mithaaqa ee uu galo ama wixii ballanqaadka uu galo arrintii markay caddaatay buu iska takadaba ile waxa weeye biyihii uu daadiyey dabadeedna markay intaasi dhacday ayuu ashahatooyin waxaan ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamada rasuulullah waxaan uga jeedaa buu yidhi inaan la odhanin seef baan ku islaamay waxaan rabaa nidaamka inaan u sheega ama ha soo duuleen ama weerar ha qaadeen ama waxay doonaan ha sameeyeen marnaba dad sidaa ku joogaya oo lagu kaxayn karaya inaanaan ahayn aqbalaynina odaygii khaatimo abwaanka u ahaa wuxuu yidhi sida xoolo suuq lagu wadiyo saylad lagu iibsho xabaalaha la soo saaray ee dibadda loo saaray sababtii ujeeddaduna tahay sab iyo maaldoone ma samayn kartaan dowladnimo mana sugaysaane inta madax xusaan leeyahay iyo suurad banu aadan marna inaad saboort naga heshaan hawsan taagine odaygaasaa dhameeyey baahi uma qabno nooma cuntanto ma geyno uma baahnin ummad la kala jarjaro inta la kala qoqobo la yidhaahdo anaa kuu talinaya diidni iyaga hadalkooda intaas kaga baxaya midna qoladan puntland baan odhanaya qoladan puntland waxaa jiray nin baa jiray dabadeedna suu dhaqaalo ku helo ayuu fekeray wuxuu urursaday guruub majmuucad buu urursaday dabeedna wuxuu waxaynu samaynaynaa xadiiqat alxayawaan xadiiqada xayawaanka waxaynu u samaynaynaa si aynu dhaqaalo uga helno xayawaankuna uga raystaan hilibkan ay la ordayaan iyo ayadan ay ku jiraan iyo xoolaha laga reebayo si ay uga raystaan qasafba waxaynu ku ridaynaa qafis ama sanduuq meeshaynu keenaynaa lacag baynu ka helaynaa iyagana waxaynu ka qaadaynaa dadkuna lacag bay ku daawanayaan marka xadiiqata xayawaankaas aynu samaynaynaa waynaan la mufaawadoonaa xayawaanka xayawaankii duurka joogay bay u tageen dabeedna waxay yidhaha waxaan rabnaa cidaanu la mufaawadoono shabeel baa loo soo saaray shabeelkii bay ku yidhahdeen waxaanu doonaynaa inaanu beertaa samayno xadiiqat alxayawaanka hilibkan aad boobka ku helaysaan aada si fudud ku heshaan halkaa laydinku keeno biyo laydiin keeno annana aanu lacag helo shabeelkii waa u jawaaba wuxuu ku yidhi in aanu xor ahaano oo gaajoonno ayaanu ka jecel lahay inaanu addoommo ahaano qafis ku jira oo aanu dherigno qolada puntland waxaan u sheegaya hadday ku talagaleen inay dadkeeda mujtamaceedii oo la haysto qaybna shaqaale ka dhigtaan una danqan waayaan dareemina waayaan dhibka meesha ka jira waxaan u arkaa inay tahay ayaan darro weyn oo soo waajahday puntland wixii aanu xaq ugu lahayn ee ama derisnimo ah ama ehelnimo ah ama tolnimo ah haddii ay ka doorbideen ka jarimada ka gala reer khaatimo inay masab siiyaan ka soo carara aan wax macnaa ku fadhiin inay siiyaan odayaasheed iyo garaadadeed iyo waxgaradkeedana ay tixgelin waayaan waa masale u taalla iyaga oo maalintii ay intay doontaba hagaadhay la xisaabin doono iyagana intaasaan kaga baxaya qolada khaatimo shirkan khaatimo ee saddexaad 3 gooroo hore ayuu dib u dhacay marka waxaa jirtay mar hore oo odayaasha aan ku idhi waxaad noo raadisaan mahmaha aan ugu mahmahay aan leeyahay waxaad noo raadisaan mahmaha la yidhaahdo ibn xaram baa yacrif illah ibn xaram waxaan jeclahay inaan in yar ka idhaahdo nin baa jiray 3 inan dhalay waxaa 3 cabdillaahi buu bixiyey 3 inan ayuu markii uu dhimanayay u yeeray wuxuu yidhi 2 cabdillaahi waxbay dhaxlayaan midna waxba dhaxli maayo dabadeedna intaa markuu ku yidhi qaadigaana u taga waa idin kala saaraya ayuu dhintay 3 inan markii aabbahood dhintay qaadigii bay u tageen qaadigii bay ugu yidhahdeen aabbahay wuxuu nagu yidhi 2 cabdillaahina waxbay dhaxlaysaa cabdillaahina waxba dhaxli maayo na kala saar wuxuu yidhi masaladani hore ima soo marin bal isuga inta aan baadhe nin dhegaystaana ugu soo diro wuxuu bal nimanka soo dhegaysto ninna wuu martiqaad wuxuu yidhi nimankaa martiqaad cuntadii markii loo keenay baa qoladii u horreysay markii cuntadii keentay ayuu nin yidhi war cuntadan ha cunina waa eye khubustii baa la keenay khubustiina mid baa yidhi war cuntadan ha cunina islaan uur leh oo 9 bilooda waa soo dubtay kii kalena wuxuu yidhi qaadigan laynoo keenay ayna kala xukumaya aabaheyna noo soo diray gebigiisa waa bilxaara ninkii basaaska wuu dubdubiyey nimankii buu tegey intii buu sheegay intii markuu u sheegay ay soo noqdeen ayuu ku yidhi maxaa qadiyada ku tidhaahdeen
kii hilibka yidhi waa khansiir cunina wuxuu yidhi xayawaanka caadiga hilibkaa sarreeyo laftaa hooseysa kan see laftaa sarreysa oo ilaahay ugu talagalay in xayawaanka duurjoogta ay isku difaacaan si marka lasoo weeraro laftu ay iliga ugaga dhacdo marka saasaan ku gartay ninkii hilibka keenay baa loo yeeray wuu ixtiraafay wuxuu yidhi waxa weeye waa ay baan u qalan kii yidhi waxaad khubista waxaad dubtay islaan 9 bilood baa loo yeeray waxa la maxaad ku tiri wuxuu khubistu dhinacna way ka duwan tahay dhinacna kama duwana marka qofta dumarka uu kale caloosheeda soo baxsan saa loo geed baa ku gartay waa loo yeeray khubista yaa dubay islaan heblaayo uma fulaan dabadna waa la ogaaday 9 bilood kii kale maxaad ugu yeeray maxaad u tiri ibn xaram way qaadigu wuxuu waxaan u yidhi nin islaama oo qaadiya intuu ummadu soo hoyato ayna uma qaleen basaasna uma soo direen intaasi markay dhacday ayuu u yeeray hooyadii way ixtiraaftay inuu ibn xaram yahay dabadeed markuu xukunkii la ridayaa labadii hore wuxuu yidhi waxbaad dhaxlaysaan kii saddexaad buu waxba dhaxli maysid ee yidhi qaadigu waa ibn xaram maxaad ku garatay buu waxaan ku gartay buu ibn xaram laa yacrif illa ibn xaramka cidaan ibn xaram ahayn ma taqaan waxaan ku yidhi ciidanka ninkaad noogu dhiibaysaan ha noqdo niman ilaah iyo rasuul iyo nebi ibn xaram naga kiciyo ibn xaramada ha noqdo laakiin ninka aad qiyaadada noogu dhiibaysaan waa inuu noqdaa nin iimaan iyo diin iyo cifad iyo akhlaaq intaba lehna sifooyinka qiyaadada waxna hogaamin kara waxaan idinkaga tegayaa inaad isku tiirsanaataan taladiinu midaysnaato meel uga soo wada jeesataan khaatuma sidii ay ku hirgeli lahaydna aad falankeed qabataan ciddii wax tabanaysana aad dhegaysataan waxa ay tabanaysaan oo halkeeda fulisaan waxaan ku gabagabaynayaa oo garaadada ka codsanaya qadiyada Puntland nimanka ay mutolkana ee xigaalkana ee arki waay waxaanu nahay colaadooda inay ilaawaan habkii lagu soo afjari karaan ay raadiyaan ay xal nimanka Puntland qadiyadooda lagu soo afjaro iminkana waxaa si toos ah khadka ugu jira daawade barnaamijka soo mar walba la socda alo ma maqlaysaa magacaaga iyo meeshaad ka soo hadlaysid magacaygu waa cabdisalaam maxamed farax haydayn waxaa jooga maka mukarama cabdisalaan aad baan waxaan kugu soo dhaweynaynaa dhambaal t v oo hawada ku cusub waxaan u malaynayaa saad u soo gashay inaad ilaa maanta telefono badan baa khadka kusoo jiray maxaad hambalyadaada koowaad ka gudbisanaysaa بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد مدعي وعبسان محمد صلاح هيدين وحجونا مكة مكرمة مكة مكرمة نبالتي في أكبر وأبريني عنو الحاجة عليه إسماعيل دادين يعني كده تبتين وعيد السلام يا فرانسا كان كسان عليكم ورحمة الله وبركاته cabdisalaan waxaan u malaynayaa barnaamijku wuu ka hordhacay baan u malaynayaa barnaamijku waxaan ugu talagalay dhambaal t v mar kasta deegaanada khaatumo waxyaabaha ugu dambeeyey horumarkooda waxa markaa ka taagan dhacdooyinka ugu dambeeyey hadda waxaa lagu socdaa shir khaatuma tiri maxaad arrimaha shirka ama bogaadin ama talo u gudbinaysaa بسم الله الرحمن الرحيم شركة كثير وحوالي كثير لو طالب جاي وصلنا أيضا وكيل فيها بنك كفى إلى السرية وعاد يا أهل وحبلين يا شركة خاطرة السيد يا كسر بلا ملع خاطرة السيد الفرح هذه وحبلين يا أخوياك شعبك سرعين تحواشي سلسلينك الأمان شعبك خاطر السيد أما سوريا ساقية حين أيها بليريا إنكم بليريا وإليها بليريا أولئك aad baad u mahadsantahay cabdisalaan maxaad kusoo gabagabaynaysaa telefono badan baa khadka ku jira waxaan ugu talagalnay qof kasta inaan daqiiqad ama 2 minute siino ugu badnaan maxaad kusoo gabagabaynaysaa waxaan kusoo gabagabaynayaa marka ugu horeysa idinka salaan guud marka xiga waxaan leeyahay hambaliyo khartuma iskahid iyo kale iyo shacabka soomaaliyeed oo hoyaanka dhammaan iyo dadkii hawleesha gaar ahaan oo hoyaanka ku sugan inuu ka mid yahay oo rasuulka khalid galay taariikhda sharciyeynta ugu horeeyo
waanu garanay cabsalaan aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa cabsalaan maxamed faarax cabsalaan haydeen oo isagu maka almukarama si toosa khadka inagala socday iminkana waxaa si toosa aanu uga qabanaynaa telefoonka daawadaha iyaga ado may maqlaysaa meeshaad joogtid iyo magacaaga adoo mahadsan hambalyadaada koobaad iyo dambaal t v maxaad ugu hambalyeynaysaa shacabweynaha reer khaatumo cabdinaasir adigoo mahadsan daqiiqadu way kugu yaryihiin maxaad kusoo gabagabaynaysaa waxaan kusoo gabagabaynayaa allow saaka talaa u taaba dadka reer SSC iyo gobolada SSC ku noola reer Khaatumo waxa weeye gobonimadii intaasaa ka hadhay intaa la israacsado marba nin baa maqanaya la sugin dadkuna meesha ma wada imaan karaan waxa weeye la iska halatureeyo dowladda dadkuna gacmaha isqabsadeen baa waan kusoo gabagabaynayaa allow aad baad umahadsantahay cabdinaasir kaasina oo ah isaguna daawaday barnaamijka si toosa ula socday oo ku sugan magaalada damaam ee bariga sacuudi arabiya aad baan kaga mahad celinaynaa cabdinaasir daawadayaa waad aragtaan barnaamijku soo socdo dambaal t v markasta fikirkaaga taladaadu waa u muhiim ummadda shacabka reer khaatumo annaguna waxaan idinka ballan qaadaynaa inaan u gudbino maqaalada aad noo soo dirtaan iyo fariimaha aad noo soo dhiibtaan waxaana inoo muhiim ah in aynu barnaamijkani wiig kasta maalin ka mid ah aanu soo gudbin doono barnaamijkani waa barnaamij taxanaa dambaal t v iminkana daawadayaal waxaa khadka si toosa ugu jira daawada isagu barnaamijka la socday hallow may maqlaysaa calaykum asalaam waa dambaal t v oo hawada ku cusub intaadan barnaamijka aynu u gudagelin maxaad hambalyo t v-ga dambaal t v usoo gudbinaysaa waxaan usoo gudbinayaa waxaan salaamaya ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan leeyahay ilaahay midnimadii naamida iyo ilaahay sukiisa horanaalaan waxaan salaamaya maamulka Khaatumo waxaan leeyahay marreer Khaatumo ha noolaadeen ilaahay subxaana wa tacaala Khaatumo siniha ka gado midkii midhadhala kii aad ku midowdaan kii shuufeesanka ilaahay idinka saaro waan salaamaya madaxdan salaamaya garaadada salaamaya odayaalameedka gabdhaha guutakoodaad aruurta hooyooyinka adeerameedka kulli waa salaamaya meelaada balayla Khaatumo waa soo samaysteen oo waxaad u soo samaysteen maamulkiina oo dhibaatooyin badan maamulada bandirada marada ku soo samaysteen waxaan leeyahay maanta oo aad sadextisateen oo meedalkayde aad nuugaysaan oo caalamkeeda ka aqoonsaday ay diganada haleela Khaatumo meel kastoo joogtaan dal iyo dibadgaba iyo wiil reer Khaatumo waxaa leeyahay gacmaha isqabtada maamulkiina adkeeya marsikaa ku caareen maamulo kale cid kale dabadida kama noqonina dalkiina difaacda madaxdiina waxay iga soo jireen
وهذا عرسه ورقوا عميرك سيور مرشان أيانا يا باتيو لا يعرف الطاعي وما كنت رأيان إنسان يخطو مدين ويسوك بنيات وبالمرمان قطاع غاديين المدين تاقيات الوقت الوقت يتوضع وما كنت خير بالكم من أخرية دوكرة وإذا فعلا يقول بين خاتمك إلهي بين وغيرين يقول يسنو قول بين نسكور من أي جماعة الخمسة يوقفوا أن يتوضعي من النار خاتمك إلهي نسكورنا aad baad u mahadsan tahay waxa weeyaan daawadayaasha iyo barnaamijka cusub waxaad moodaa in midba mid ka sii bilaaran yahay daawadaha kale ee xiga telefoonka khadka aynu ku qabano halo magacaaga iyo meeshaad ka soo hadlaysid السلام عليكم calaykum asalaam magacaaga iyo meeshaad ka soo hadlaysid ولا أنا بطلب يا مغارب شرفيا si wacan baan ku maqlaa walaalo ولا محمد بطلب يا مغارب شرفيا magacaagana أنا عايزة مريم دليلة maryane barnaamijku waa barnaamij loogu talagalay hambaliyada ama baraarujinta aan ugu magac darnay Dhambaal TV oo ku socda bulshada Khaatumo weyn ama reer Khaatumo maxaad u hambaliyaa ama taageero u soo gudbinaysaa وحنا بنينا يا الحمد لله رب العالمين فرحان ويا خاطبه الحمد لله يا بابا فرحتنا هاي الحمد لله ما صيرة ما مكيرة الحمد لله لما وحنا أسر شيئا لما ما خاطبه ما يكتشفون هاي يبغى ما راحنا ويا بغمرة كل خير خاطبه ما يكتشفون إن إلهي من أيام سوشيالنا يا وأنتم فرحتم هاي ماما كيا يا بابا فرحتم هاي الحمد لله رب العالمين الحمد لله على وما شرع على وما حتى خلاص يسألها جيد الحمد لله وحن راعينا يا تيجي يوم يا وحن لا هاي دولة ويا خاتم من في دولة يوم دولة ويا خاتم من في دولة يوم تنتهي ردينا تردنا وتردنا تونينا دندورتي يا دندورتي تراعي نودي ويمشي تراعي نودي ويمشي دغا فصلاي شكون دولي يوضع علي درديني يعني دولي يوضع مصفاك بحي دردني تيارا هدونا يا كودري يعني dumarkii ya caruurihii hadday dabacsanayeen hadulayna howadaadaynoo jireen intaas waraa masiixdayuna kusoo koolaya waxaan ku hambalyeynayaa meel kastay joogaan madaxda Khaatumo ee joogta darda Khaatumo ayaan salaamayaa dhammaantood cadowgooda ilaahay tabiyo cadowgooda ilaahay tabiyo cadowgooda ilaahay tabiyo calankoodana ha sareeyo waxaan salaamayaa oo kale madaxweynaha maxaan ku idhahaa madaxweynaha Khaatumo state Khaatumo state Soomaaliya waxaan salaamayaa madaxweynaha cali khaliid galay waxaan salaamayaa ciwaasha waxaan salaamayaa cali ciise waxaan salaamayaa maxaan ku idhahaa jaamaskare waxaan salaamayaa maxaan ku idhahaa kullu garaadada oo dhan ay garaad jaamac garaad cali garaad garaad kullu garaadada salaam bulaale garaad cabdillaahi garaad soose dhammaan koor kala maasha Allah garaadada way kala badan yihiin waxaan maleynaa anana waxaan maleynaa anana waxaan maleynaa insha Allah si toosan ay ku daawanayaan aad baad mahadsan tahay walaal daawadayaal meel kasta aad joogtaan waxaan u malaynayaa inaad si toos ula socoteen telefoonada isagoo barnaamijku cusub yahay telefoonadu si isu dhaafayeen mar kastana fikirkaagu waa u muhiim ummadda iyo shacabka reer Khaatumo fikirkiinuna mar kasta waa ka kaliya ee toosi kara qofka qaldan barnaamijkeenuna caawa waxaan ku soo gabagabeynaynaa inta waa anigoo ah Awil Cismaan Jaamac Awil Cagaare intaynu barnaamij la mid ah aynu ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo kulanti dambe iyo barda Khaatumo